ما تصمد نقول دم يسوحان سلسلة قادني قابك لوسو دونلون غريستو مايكروسوفت اوفيس يسوي كله سيدا كمبيوتر لو شفته ما دام حتى أعرفنا إن أكتيف جرينه مايكروسوفت اوفيس وحن كو قصبن هاي كرومك أما بروزرك أقوم به مثلا أما أقوم في عن إنا حلا مركوري كروم كوكو في عن طبعا حواي أما بروزر كوكو في عن حواي بقول كروم واي وكورين حاسود دخلنا بقول كروم كدب وحن أكتيف جريننا مايكروسوفت اوفيس من اوفيس كاسو aan computerka tusmada ku horeysay aan ku soo degsanay ama aan ku shubanay marka hore marka waxa tagayna secondary virtualization ama secondary operating system waxaan left click din waxa tagayna Microsoft Edge naftiisa Chrome waaye yani naftiisa waxa browser waaye laakiin waxa ka sii macnaha muhiimsan oo ka sii fiican Google Chrome-ka din waxaan left click ama double click leedahay mid xigtan waxa iska fiirisaa in internetka dinkiisa in online ka tahay din waxaan leenahay meesha ku qoranaysa download علينا هاي داونلود جوجل كروم على هاي معلن داونلود جوجل كروم من علينا انتر انت كده طبعا حتى يسا قيبت ورئيسه طبعا قيبت كحبتو جوجل قيبت قرنت هاي جوجل كروم داونلود the first secure browser من علينا ليفت كليك انت كده معقول فنسا هيلبي ماك جوجل كروم سو تكتن حضرت بك قادي كرتا دي ادوني سمينا حوا تكتو اهان كرتا سو أنا تكتب قادنا دين حالنا هاي download Chrome وحنو لي your download will begin automatically مركز automatic بلاونا in Google Chrome وكوسو دبا طبعا هندو بلاون وايو كلي حالنا هاي download Chrome منو لا قلفنا مرك بس أوجد إنه Google Chrome هاتم وإنه صعدا ما ونسو دقايا Google Chrome مركو لما يو دين ما حاسكو دينا إنه كمبيوتر كوشوانو سو مركز second operating system كوشوينا لما أنت كده بحل هاي open file automatically معنا set up Google Chrome يعني صوك يعني حلنا open file left click على هاي بدنا حل هاي run yes so مركا بروزر كوجل ريان صوك يعني هاتن وحان أود ولا ناس كحرنو حلنا cancel so مركا هاتن وحنوسو دقايا ما كمبيوتر كان لغو شوية Google Chrome مركا حاسوينا انتو وكذا معنا حولي initialization اوكي markuu dhameeyo automatically macnaha wuxuu sameeynaa shortcut uu sameeynaa oo ah Google Chrome browser inta wixii ka dambeeya dabcan wuxuu soo kicinaya Google Chrome-ka soo haatan marka Chrome-keena browser-keena Google waa diyaar hadii macnaha markaas aad aragto inaad Gmail inaan ku xirto kale sign in leedahay hadii aad rabin waxaad dhigi kartaa don't sign in then use sidaas default madaxna skip okay dabcan haatan waxaan soo degsanay soo Google Chrome waa inoo diyaar ah so maadaama Google Chrome hadda haysano waan soo degsano marka waxa inoo suurtagal ah in aanan macnaha office-keena aan activation ku sameyno waxaana minimize naxna right click dan xaleenahay so view medium dan xaq digna small ka dhigana marka dabcan Google Chrome-keena ku soo laabano this is the Google Chrome dan waxaan sameyn karnaa customize Chrome alena left click qabta ku fanaysa dan zamers kala duwan doornaysa waxna dark nonder color ta marka dabcan color-ka markaas ito anaga u baahanahay doornayna kan سودنا قيبتها كل حسك لذا كنسل مرك ده صار مرك هاتن Google Chrome كنا وأنا ديار I think واحد كاستمر كسيتو أو بعنا هاي يعني Google Search Engine هاتن مشان وكقول كرنا هدي أنا أوصل لعنو instruction كأراعي إنه كله so text document اللي بتكلم علينا هاي so download Google Chrome هاتن كل حسود يقصني Google Chrome so كل حن أكتب جرينا هنا مركحيو Microsoft Office وعن هوري كمبيوتر كوك شغلنا مع أوصل لعنو هنا secondary so operating system ورن horta version-ka anaga aan soo nolon garaysan ama nagu jiro kale fiirin waay waxa tagaysaa search box-ka in waxa ku qoraysaa word soo waxa soo kicinaa Microsoft Word soo kicinaa marka okay wararta waxa fiirinaa trail-ka ma dhamaaday soo xilliga macnaha loogu talagalay oo yani office-ka uu free-ga inoo ahaa waqtigaas ma dhamaaday ama waxba ka dhiman wali macnaha trail-ka ku jirna isticmaali karnaa okay wararta wuxuu soo tuuray waxa kale enter product key ka baahan waxa la cancel then waxa blank document we can write something not now not now leedahay button ka kufanaysa so hadda waxaan qori karnaa active man I think trail ku dhamaaday markaan oo kale laba mid ku banaan macna in application kanita ama office applications ka inaad macnaha si toos ah aad ugu iibsato Microsoft Office ama sidoo kale macna waxa ku banaan in wada kala amarto ma qaabka activation aad u sameyso wararta waxa fiirinaa so version kana waxa leenahay file in waxa tagaysaa more in waxa ku dhufanaa account so Microsoft Office لو يكون لاتني كود مركا office professional ولا لو يكون لاتني كود okay marka the version kan oo ogaanay so version hoose daartina si waqti this is the version hoose waa marka version korna waxaan u soo bis professional loo kun
كل أتنكوا مركب أوكي مركب حتى نحاسب دينا مركينا أكتب جرينه ما دام أصلا إنه شقينين علينا هاي left click ما مش شقينا هاتن كان سو مركب application أسكح على cancel then حاول معناتها سو جوجل كروم ويماذا كروم كانوا يمانا then search engine كان حقو قرينا على ذا activate Microsoft 2021 so professional in CMD علينا مركب haddii micnaha markaasayto erey wadnaga qaldanaysaa si toosan oo saxa marka soo jeedaa marka wuxuu sameynaa suggestion uu sameynaa marka so keen caadi iska dooranaa marka sanoo saxa wixii ay qaldan markaasayto wuxuu ku leeyahay show result for qaabkan oo jeeda yes leeyahay marka la tigida ku fadhina dan hoos imaanina wuxuu leeyahay office activation command by oman so marka hoos u soco so maximize oo leh hoos u socono wuxuu ku leeyahay get office for free how to activate office ku ilaatanka using CMD okay office activation command by labadan option midka dooran karna okay simple kana fiirina gidubkan waxayna right click open link in new tab ku fanaysa then tab cusub ku furma xalana this tab left click galena so tab kan waxa sugan intuu soo bandhigayo macnaha page-kiisa so marka hoos imaanayna office ko 231 okay ugu horeyn hoos u soco hoos u wad so here is all text you will get in the command prompt window okay so also okay marka hatan marka anaga xasuu copy gareysanayna copy so copy the script code below into the new text document using my very written patch script so طبعا كنا استعمالي كنا كي هرنا استعمالي كنا so marka I think kana ku fiirnaa marka step 2 ku fiirnaa kan hore wuxuu ahaa san hore soo aragnay step 1 waay so kana waxa waay step 2 waa marka let's go marka step 2 ku fiirnaa waxaan leenahay left click qaybta ugu dambaysa left click ku highlight soo sameey korgey dan waxa la control c waxaan leenahay right click dan waxaan leenahay copy so marka window gana waxaan leenahay minimize dan waxaan tagay desktop-ka dan waxaan leenahay right click new text document soo doorna waxaan left click dan waxaan leenahay so Microsoft activation so then enter then maximize the code ka aan soo copy gareynaa inta ku bas gareynaa waxaan right click dan waxaan leenahay paste file leenahay save as leedahay marka okay save as marka aanu meesha ku save gareynayno location kan doorna waxaan desktop ku save garay activation waxaan raacineynaa 2021 text document darban menu ku dhufanayna then waxaan leenahay all then waxaad tagaysaa file name kusoo laabo left click leh then waxaad ku daraysaa extension waxaan leenahay .cmd okay command line interface this is the command line interface then waxaan leenahay save gareynaa inta ku save gareynaa macalin location ina ogtahay muhiim waaye desktop ku save gareynaa then waxaan leenahay save window gan iska xir waxaan leenahay cancel this is marka cmd marka waa kan waxaan leenahay right click inta kadib waxaa leedahay open or run as administration ku dhufanayna marka then waxaan leenahay yes طبعا programkan يعني ku dhisan code-ka wuxuu guda galayaa inuu wax ka bedelo office-ka ama applications-ka office-ka macnaha ugu jiro si markaasayto aan u helno as a free okay you wait laakiin waa muhiim haddii jeer internet-kaaga inuu online ku yahay ama computer-kaaga inuu wifi ku xiran yahay ama hotspot inaad ku xirto labadaba isku mid waaye okay hatan wuxuu leeyahay supported products and versions-ka script-gan yani wax ka bedeli kara waxaa waaye Microsoft Office standard iyo Microsoft Office so professional marka hatan wuxuu wadaa process-ka uu ku active gareynayo ama free oo uga dhigayo so office-ka noogu jiro marka intuu macnaha markaasayto dhameynayo aan ka sugeynaa okay macalinkan dabcan uu nagu dheeraaday I think process dheer uu macnaha maraya I believe maybe waxa laga yaabaa inay hawada culus tahay macquul waaye in script-ga macnaha waxay ka qaldiin suurtagal waaye marka waxaan isku daynaa inaan kan ka tagno so mid kalena isku dayno marka kan ka tagaynaa waxaan isku daynaa mid kale waxaan leeyahay cancel garay kan waxaan ku laabanaynaa browser-keena then waxaan tagaynaa desktop okay sida macnaha idin sheegay office activation command by okay waxaan tagaynaa kan waxaan right click then open link leenahay so kana tagaynaa marka so marka hoos u dhaqaaq scroll down so then wuxuu ku leeyahay copy kana copy garaysan waxaan left click leenahay so marka copy garaysano then waxaan minimize then so text document cusub samaysan kana waxaan right click then waxaan new then waxaan text document so activation okay kii hore kadib aan kan ahaa noo shaqeyn waaye so hatan waxaan isku daynaa kana isku daynaa waxaan right click
then waxaan run as administrator. Yes, I think they are same waaye laakiin waxaa filan inuu shaqeeyo boqolkiiba boqol. Product activation successfully dabcan scriptkan wuxuu noo suurtageliyey inuu noo active gareeyo so officeka aan horey computerka micnaha ugu soo install garaysan ama ugu shubanay marka haatan activationkan ma shaqeeyey mise ma shaqeeynin so let's check this window waxaan leenahay cancel then waxaan u tagaynaa waadkii aan hore usoo furnay waxaan leenahay waad then waxaan left click let's see markii inuu shaqeyn kala fiirino okay haatan soo jeedaan wax product key micnaha uu soo tuuray magan waxaan ku dhufanaa blank document only accept garayna I can take something so I can write something wax ma qori karnaa hadda yes I believe in wax qori karno so marka haatan waxaan ku guuleysanay inaan officekeena in applicationada Microsoft Office inaan active garaysano anagoo markaas isticmaalayno CMD script ana isticmaalayno sidoo kalena ku dhex jirno secondary operating system marka waa muhiim mar haddii micnaha product activation aad sameynayso secondary operating system aad isticmaalayso ama aad isticmaalayso application crack oo kale secondary operating system aad isticmaalayso waa muhiim sababtoo waxa waaye xogtaada hadii jeer ama computerkaaga wadqabkiisa hadii jeer waxay ku yihiin boqolkiiba boqol safe waxaan leenahay macallin so cancel don't save leh so waxaan kusoo laabanayna instructions aan kusoo laabanayna waxaan sameynaa download Google Chrome kusoo laaban garaysanay sidoo kale waxaan active garaynaa Microsoft Office 2021 Professional okay tusmadeena intaas ay ku dhan tahay waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh